gabdhaha suxufiyiinta ee ku sugan Muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay daraasad lagu sheegay in gabdhaha sharaftooda ay ku bedeshaan shaqada saxaafadda. Tiro gabdho suxufiyiin oo isugu yimid kulan ayaa ku tilmaamay daraasadan in lagu sumcad dilayo gabdhaha wariyaasha iyadoona qarashaad looga raadsanayo hay'adaha deeq-bixiyaasha. Nimca Xasan Cabdi waxa ay ka mid tahay gabdhaha suxufiyiinta. waxa ay sheegtay daraasadan been abuurka looga sameeyay sharafta gabdhaha suxufiyiinta in arintaasi ay dacwad la tagi doonaan. waxa ay kaloo wax laga xumaado ku tilmaamtay in been abuurkan ay maalgelinayaan hay'ado caalami ah. anaga waxaan ka hadlayna waxay tahay hay'ado caalami ama aan iraahdo BBC oo kamid ah idaacadaha caalamiga ayaa soo xiganayso ayagoo aan sameenin warar isku dheeli tiran arintan ku saabsan gabadhfalada la leeyahay buugaana la soo saaray gabdhaha waa la kubsada ama agaasimiyaashan xataa sharaf dhac u tahay arinta kalena waxay tahay in aan arintaas ka dacwoon doon haduu laana gaarsiiyo hay'adaha ku saboorta gareeyay arinta inay soo baxdo buugan. daraasadan oo ka hadlaysay dhowr qodob oo ku saleysan shaqada gabdhaha suxufiyiinta ayaa waxa si toos ah ay u cadeynaysay in maamulada warbaahinta ay gabdhaha suxufiyiinta ku xadgudbaan. Deeqa Maxamuud Qaasim ayaa shaacisay inaysan aqoonsanayn ururka sheeganaya in xuquuqda gabdhaha u dooda waxayna ka dalbatay in si degdeg ah ay raali gelin u bixiyaan gafka ay u geysteen sharafta gabdhaha suxufiyiinta. gabdhaha maanta halkan isugu yimid ma jirto gabar kamid ah ururka ama sheeganaya in daraasadan uu sameeyay xubin ka tirsan waxaan kamid ahay gabdhaha wariyaasha ee magaalada Muqdisho ka shaqeeyo waxaan xarumaheena ugu shaqeystaa si sharaf leh waxaana waxba ka jiraan ah ama ay tahay wax naga been abuurtay ama aan sal iyo raad toona lahayn daraasada ay sheegayso ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed magaciisa lagu sheego ay sameeyeen waxaan ka codsanaynaa isla markaana aan ururkaasi ka rabnaa inay raali gelin ka bixiso tacadiga iyo xadgudubka ay u geysatay gabdhaha Soomaaliyeed. Nasra Bashiir Cali ayaa soo hadal qaaday waxbarashada gabdhaha suxufiyiinta arinta la xiriirto waxayna cadeysay in waxbarashada gabdhaha suxufiyiinta ay la mid tahay dhanka wiilasha. warbixin aan arkay waxa kamid ahayd inay tiro gabdhaha aqoon ma lahan oo mid maadiya macnaheedu waxay tahay taasina inay ay marqaati ka yihiin dadka Soomaaliyeed gabdhaha saxafiyiinta oo midda ugu yar ay maanta tahay batch qaar master diyaarinayaan kuwana hadda ay ku guda jiraan inay heerkii koobaad ee batchka ay diyaariyeen ay wadaan marka taasi waxa leeyahay inay gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda ay meel uga dhacday anigu afkaygu ma kara waxyaabaha ay tiri gabadhaasi aniga 4 station ka soo shaqeeyay ka nasrahan nolosheedina lama kulmin waxa ay sheegaysaa iyadoo haday la kulantay gabdha qaba ama iyadoo ay ku dhacday walaashan ha noo timaado inaga la raadinayna xaqeeda yeelanaya gabdhaha kale la aadin. Zayn Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho.